wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in xaaladda wadanku ay tahay hadda mid degsan marka la eego dhowrkii cisho ee la soo dhaafay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaana warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in uu jiray qorshe ballaaran oo dhaqaale hub iyo warbaahin lagu bixiyay si loo marin habaabiyo qorshaha isbedel ee wadanka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu yahay mid lagu majaxaabinayay isbedelka iyo horumarka wadanka Itoobiya isagoo sheegay in ay la dagaalami doonaan, wuxuuna sheegay inuu si bareera ula dagaalami doonto cid kasta oo ka dambaysa rabshadaha ka socda caasimadda Addis Ababa. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkan markii uu sheegayay waxa uu xirnaa dareyska ciidanka militariga. haddaba warbixinta soo socota ayaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqa wixii iska bedelay xaaladda maanta. xaaladda magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya ayaa maanta degan, waxaana haatan dib u furmay xarumihii ganacsiga qaarkood. xaaladda ayaa si caadi ah dib ugu soo laabatay kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata kaas oo ka dhashay dil dhowaan loo geystay nin fanaan ah oo ka soo jeediyay qoomiyadda Oromada. waxaa wadooyinka la geeyay ciidamada amniga. dhinaca kalena booliisku waxay sheegeen inay xireen in ka badan 270 qof oo lala xiriirinayo rabshadihii dhowaan ka dhacay dalkaasi. duqa magaalada Addis Ababa ayaa ka codsaday shacabku inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii. mas-uuliyiintu waxay albaabada isugu dhufteen xafiisyadii 3 telefishin oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxaha lagu eedeeyay inay dadka kicinayaan. mas-uuliyiinta Itoobiya ayaana si rasmi ah u sheegay inay u xireen warbaahintii Oromo Media Network oo ku hadli jirtay afka qoomiyadda Oromada. dowladuna waxay ku eedeysay telefishinkaasi inuu abuuray kicin dadweyne iyo mid diimeedba, halka dowladdu ay baarayso 2 telefishin oo kale oo la kala yiraahdo Asrat iyo sidoo kale Dimisti. telefishinka Oromo Media Network waxa uu la hadlaa Oromada, telefishinka Arsatna waxa uu la hadlaa dadka Amxaarada ah, halka Dimisti uu yini uu barnaamijyadiisa ku baahiyo luuqadda Tigreega. talaabadan ayaa imaanaysa xilli Itoobiya ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado dhaliyay kadib dilkii fanaankii caanka ahaa ee Hachalu Hundessa. ugu yaraan 80 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen qalalaasahan ka dhashay dilka fanaankan ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. weli Itoobiya waxaa ka taagan xiisadda, waxaana xiran adeega internetka iyo telefoonka oo aan si toos ah u shaqaynayn. waa tahay wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo dhinaca Itoobiya waxay kala sheegayaan in dhinaca commissionka ama taliska booliiska ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay soo saareen digniino la xiriira in aan laga faa'iideysan rabshadaha waqtigan ka soconaya dhulka dowladda deegaanka dhulka Itoobiya. waxaana hadlay commissionka deegaanka Maxamed Cali oo warbaahinta dowladda deegaanka u sheegay in ay markaasi tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo falalidku ay amniga ka samaysa dhulka dowladda deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga. wixii warar ee arrimaha Itoobiya ku soo kordhana waxaad kula socon doontaan wararka iyo barnaamijyada dambe ee RTN insha Allah ama baraheena bulshada.